wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa shaacisay in 11 qof ee dheecanadooda loo diray dalka dibadiisa ee laga soo hubinaya xanuunka coronavirus in dhammaantoodba ay caafimaad qabaan. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye oo 26 Abriil warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in tirada guud ee ilaa hadda ay u diiwaangeliyeen kiisaska xanuunka coronavirus inay dhanyihiin 6 qof, laba ka midina ay ka bogsadeen xanuunka COVID-19. agaasimuhu waxa uu sheegay in tirada guud ee xanuunkan laga baadhay ay dhan yihiin 174 qof dhammaantoodba laga waayay astaamaha ay leeyihiin xanuunka COVID-19. agaasimaha oo hadalkiisa si watay waxa uu sheegay in 24 saacadood ay ugu dambeeyay xuduudaha dalka ka soo gudbeen dad tiradooda lagu qiyaaso 1662 qof dhammaantoodba laga hubiyay astaamaha ay leeyihiin xanuunka coronavirus oo ay caafimaad qabaan. 11 qofba jawaabtoodu way soo noqotay. 11 qofba waa negative, qof laga helay xanuunka kuma jiro 11 qof ay noo maqnaa. sidaa daraaddeed wax shay baadhahoo hadda dibadda ay noogu maqani ma jiro, waxaanu diri doona mooyaane. ilaahay baa mahadle, weli wax kaysasa oo cusub oo ay nagu soo biiray ma jiraan. xaaladeennu waxay maraysaa halkii ay hore u maraysay. nambarkuna waa 6 qof alxamdulilah. qofkii hore u bogsaday waxaa maanta ku soo biiray 1 qof oo kale oo bogsaday. marka tirada dadka bogsaday imiga waxay maraysaa 2 qof ee lagu xaqiijiyay shaybaadh inuu xanuunkaasi ka baxay oo ay bogsadeen. 4 qof kalena waanu la soconaa, waxaan ka rajaynaynaa wax dhibaato ma qabaan, iyaguna aad iyo aad ayay u fiican yihiin. iyagana waxaan rajaynaynaa dhowaan inuu shaybaadhkoodu iman doono oo ay bogsi noqon doonaan insha allah. haddii aan sheego lambarka ama dadka aynu ka iskarayn garaynay xanuunkan 24 saacadood ee u dambeeyey waa 1662. tirada guud ee aynu shaybaadh u samaynay waxa weeyaan 174 qof. dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland waxa uu fariin u diray bulshada reer Soomaaliland waxaanu kula dardaarmay in ay si dhow la socdaan fariimaha wacyigelinta ah ee wasaaradda caafimaadku u soo saarto. waxaanu sheegay qofkii isku arka astaama xanuunka uu leeyahay COVID-19 inay si degdeg ah ula soo hadlaan halwadeenada caafimaadka isla markaasna ay soo garaacaan lambarka gurmadka degdega ah. wacyigelintaasi waxa weeye inay dadkeenu ku dadaalaan oo ay mar walba isticmaalaan nadaafadda gaar ahaan farxalka. waa inuu qofku ku dadaalaa oo uu mar walba isticmaalaa. waxaan u sheegaynaa bulshadu inay kala dheeraato oo ay kala durkaan. bulshadu waa inay kala dheeraataa oo ay kala durugtaa. waxa aan u sheegaynaa bulshadu in ay guryahooga joogaan oo ay ku nastaan aqaladooda haddii aanay u baxayn arrin muhiim ah. waxa aan bulshada u sheegaynaa in qofkii isku arkaa calaamadaha xanuunka oo ah qufac qallalan, xumad iyo naqaska oo dhibaya inuu soo garaaco nambarka 988 si ay shaqaalaha caafimaadku ay ugala hadlaan ama ugu diraan halka u baahan. haddii uu kaalmo u baahdana loo soo diro ambalaasyo iyo wixii uu u baahan yahay. xamse xir saxayd, wararka laanta afka Soomaaliga codka bariga Afrika, magaalada Hargeysa. si aad joogto uga hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika, fadlan iska diiwaangeli channelka YouTube-ka ama dooro bogagga baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka.